بسم الله. السلام عليكم. الحديث السادس، كتاب 40 النووي. إن الحلال بين وإن الحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن البشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه. xalaasha way caddahay, xaaraantana way caddahay. xadiiskan wuxuu walaalayaal na barayaa laba arrimood oo muhiim ah. in xalaasha ay caddahay, xaaraantana ay caddahay, laakiin ay u dhexeeyaan arrimo markaasi mushtabahaad ah oo aan u kala caddayn dadka intooda badan. islamarkaana loo baahan yahay arrimahaasi in laga fogaado, qofka inuu ka fogaado oo una ku dhicin arrimahaasi. qofkii ku dhacana markaasi u noqonayo qof ku dhacay xaraam, qofkii ka fogaadana u noqonayo qof ilaashaday diintiisa iyo sharaftiisa ilaashaday inuu noqonayo. dabcan ashyaada adduunyada macnaha ama wax walbo adduunka ka mid ah waa inuu xalaal ama waa inaga xaaraam, labadaa mid unbuu kaleeyahay, macnaha wax u dhexeeya ma jiraan. laakiin xalaasha ma xadidna, laakiin waxaa xadidan waa xaaraamta. macnaha wax walbo waa xalaal ilaa la helo wax xaaraantinimaynayo oo daliil ah. marka xaaraamtii marka waa la xadiday, wax kastoo xun mar si guud baa loo xadiday oo waxaa la yidhi wax kastoo xun waa xaaraam. macnaha beenta xaaraan bay kaa tahay, inay xunta wada ogtahay, khiyaanadii xaaraan, zinadii waa xaaraan, macnaha dilki macnaha oo macnaha macna darada ahaa ama xaq darada waa xaaraan. sidoo kale muxuu ahaa ribadii waa xaaraan. si guud baa wixii yaa loo xaaraantinimeeyey. marna si macnaha waxaa loo sheegay khaas ah ayaa loo tilmaamay ashyaa cayiman, sida ribada oo kale. waxaa la cayimay sida aayadaha qur-aanka ama axaadiista kusoo aroortay. tusaale ahaan xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu alkhinziiri wamaa uhilla ligayri illahi bihi walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatixatu wamaa akala asabcu ila ma dakaytum wamaa dubixa cala annusubi waan tastaqsimuu bilazlam dalikum fisq. macnaha waxyaabahaas oo dhan baa nalaga xarimay oo la taabtay oo la yiri hebel iyo hebel iyo hebel si khaasa loo sheegay. marka arrimahan mushtabahaadka ah waa arrimo dabcan ama xalaasha raacsan ama xaaraanta raacsan, laakiin dadka aqoonta ula diinta unbaa kala saari karo. marka maadaama waxaan ay ku shaki geliyeen, iska fogow. macnaha waa xadiiskii kale ee nabiga sal allahu alayhi wasalam uu yiri: dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka. macnaha waxa ku shaki gelinayo iska dhaaf, waxaan ku shaki gelinayn aad. marka waxyaabahan iskaga fogaado. marka tusaalooyin buu soo qaatay nabiga sal allahu alayhi wasalam. wuxuu usoo qaatay sida qofka xoolihiisa ku raacaya ama ku ilaashanaya meel macnaha xuduud ah oo kale, sida beer, sohdin beer camal oo kale, ama meel dad ama dowlad macnaha ay xiratay oo kale. hataa qofkaasi hadduu halkaasi ku ilaaliyo xoolahaas mar walba, waxaa khasab ah maalin un inay u dhacayaan meeshaasi, ay gelayaan xoolahaasi baa khasab ah. marka qofkan ku wareegeysanaya waxyaabahan mushtabahaadkana saasuu lamid yahay. waxaa khasab ah inuu maalin un ku dhaco xaaraam, inuu ku dhaco amaba shaygaasi mushtabaha nafsadiisa uu kamid yahay xaaraanta, markaasi qofka unu dareensanen. marka in la isaga fogaado, meesha soomaalida ay ka dhahdo banaankii mare maradiis geed ma xagto, saasoo kale camal meesha ay soomaalida ka dhahdo weyaan. marka in laga fogaado waxyaaba mushtabahaadka ah. sidoo kale xadiiskan wuxuu inooga waramayaa arrin muhiim ah, in jirka bini aadamka uu kamid yahay xibintaasoo ah qalbiga ama wadnaha af soomaali.
wadnaha oo ah meesha laga xukumo bini aadamka ama qofka bini aadamka laga xukumo. haddii markaasi uu wanaagsanaado wadnahaasi ama qalbigaasi uu wanaagsanaado oo uu caafimaadssanaado, caafimaadkaasi ha noqdo mid xisi ah oo markaasi la arki karo muuqda, amaba ha noqdo mid macnaha macnawi ah. labadaasba macnaha qofka bini aadamka inuu saameyn ku yeelanayo. hadduu wanaagsan yahay ama uu caafimaad qabo, jirka intiisa kale waa caafimaad qabaya. hadduu xanuunsado qalbiga ama wadnaha xanuunsadana, qofka intiisa kale wuu xanuunsanaya. marka qofka markuu dambi sameeyo, qalbigiisa waxaa korayso ama fuulayso dhibic yar oo madow. kadib dambiga labaad mid kale ku dul dhacayso hadduuna markaas ilahay u toobad keenin oo laga masixin. sidaas oo kale ilaa markaasi marka dambe qalbiga dhan uu madoobaado, u daboolmo. arrinkaasi waxaad arki kartaa waxyaabaha hadda adduunka hadda tusaale aan soo qaadan karno hadda, qofka laysanka leh oo baabuurka wado ama baabuurta waaweyn ha noqoto ama kuwa yaryar, dambi markuu galo waxaa la siiyaa dhibic macnaha oo khalad baa la siiyaa. dhibcahaasi way badanayaan marka dambe ilaa laysanka laga qaado qofka. marka dhibicdaasi taasaan kusoo xasuustay. xadiiska waxaa werinaya waa muttafaqun calayhi ama waxaa werinaya imaam albukhaari kitaabkiisa saxiix albukhaari lambarka 52 ayuu kaga yaalaa. imaam muslimna waa wariyey xadiiska 1595 lambarkiisa yahay. marka hadda waxaan isa saaraynaa macnaha si deg deg insha allahu tacala lafdiga. xadiiska waxaa werinaya can abi cabdillaahi aabihiis ayaa werinaya oo waa kee nucmaan ibnulbashiir. nucmaankii ina bashiir ahaa ayaa werinaya, allah ka raali noqdo, radia allahu canhuma. isaga iyo aabihiis nucmaan iyo aabihiis oo ah bashiirba allah ka raali noqdo. cabdillaahi wuxuu ahaa taabici ma aheen, macnaha saxaabi ma aheen, sidaa darteed kuma jiro radia allahu canhumada kuma jiro. aabaha oo bashiir ah iyo wiilka werinayo markaasi oo labadaba saxaabiyiin ayaa xadiiskan markaasi macnaha la yiri radia allahu canhuma. marka haddaan qeexno si yaro kooban, waa maxay saxaabi iyo taabici maxay kala yihiin? dadka qaar baa laga yaaba inay iskaga khas ay garanaynin. saxaabi waxaa la dhahaa qofka arkay nabiga sala allahu calayhi wasalam la kulmay, isagoo caafimaad qabo, caqligiisa taam yahay, rumeeyey, sidaasna ku dhintay oo aan markaasi ridoomin ayaa la dhahaa saxaabi. taabicina waa qofkii markaasi arkay saxaabi arkay, qof nabiga arkay isaga nabiga ma arkin sala allahu alayhi wasalam, laakiin wuxuu arkay saxaabadii nabiga aragtay ayuu arkay, dhammaantood ama mid kamid ah ayuu arkay. marka sidaa uuna rumeeyey nabiga sala allahu alayhi wasalam, sidaa ayuuna ku dhintay isagoon ridoomin. marka taabici kaasaa la dhahaa. taabicina wuu jiraa oo isagana wuxuu sii arkay taabiciga ayuu sii arkay, markaasi waxaa la dhahaa taabici. wixii markaa intaa ka dambeeyo waxba markaasi waxay kamid yihiin dadka muslimiinta caadiga ah. marka nucmaan wuxuu yidhi ibnulbashiir radia allahu canhuma, qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay, nucmaan baa hadlayo, samictu waxaan maqlay rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay oo leh yaquulu dhahaya, ina alxalaala bayin, xalaasha way caddahay, wa ina alxaraama bayin, xaaraamtana way caddahay, wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun, waxaana u dhexeeyo arrimo mushtabahaad ah oo aan kala caddayn, macnaa mugdi ku yara jiro. laa yaclamuhunna kathiiru min annaasi, dadka intooda badan ayna ogeen. macnaa halkan baa ku caddaynayso laa yaclamuhunnadaas baa waxay ku caddaynaysaa in arrimahan mushtabahaadka ah ay xalaasha raacsan yihiin ama ay xaaraamta raacsan yihiin, laakiin aqoonta dadka oo yar baa keenayso markaasi inay noqdaan mushtabahaad. laa yaclamuhunna ayna garanaynin xalaalnimadooda ama xaaraantinimadooda, ayna u kala caddeen kathiirun min annaasi dadka intooda badan. faman ittaqaa qofkii markaasi ka dhowrsada ashubuhaati waxyaabahaasi shubahaadka ah macnaha aan kala caddayn, faqad istabra'a wuxuu ilaashaday lidiinihi diintiisa iyo cirdihi sharaftiisa iyo diintiisa ayuu dhowrsaday qofkaasi. waman waqaca qofkii ku dhaco fi shubuhaati oo macnaha arrimahaasi ku dhacana, waqaca fi lxaraami wuxuu ku dhacay xaaraam, maadaama una ogeyn waxaana u kala caddeen, macnaha waa markaasi waxay noqonayaan xaaraam. ka raaci qofkii ku raacaya xoolaha, ka raaci qofkii xoolo jirka ahaa, yarcaa xoolihiisa ku raacanaya xowla alximaa meesha xuduudda ah ama seyraha ah qofka kale u ootay, sida beerta oo kale ama xadka wadamada camal oo kale, ama meel dowladda ay odatay oo kale, meel aan lagu ogoleyn adiga oo bareefada. yuushiku qofkaasi wuxuu u dhow yahay
an yartaca inuu daajiyo fiihi beertaasi ama meeshaasi inay xoolahaasi galaan ayuu u dhow yahay mar walba. marka taa ayuu lamid yahay ninka ku dul wareegsanaya waxyaabaha shubahaadka ah ee aan kala cadayn, wuxuu lamid yahay qofkaasi xoolaha ku ilaalinaya beerta xuduudeeda. alaa baraaruga hooyahay, wa ina likulli malikin boqor kasta ximaa wuxuu leeyahay xuduud oo markaasi haddaad ka tallaawdo seefta ay macnaha ku marayso. alaa wa ina xima allaahi ilaahay muxuu ahaa xuduudiisa maxaarimuhu waa waxyaabaha uu xaaraamtinimeeyey. seeraha allah subxaana watacaala waa waxyaabaha uu xarimay, macnaha halkaasi ma dhaafi kartid lagu yiri waxbaa ka xaaraam ha usoo dhawaanin, marka inaad usoo dhawaataba mehenba marka horeba. alaa wa ina fi ljasadi waxaad ogaataan ama baraaruga, alaa baraaruga wa ina fi ljasadi jirka waxaa kamid ah ama ku dhex jira mudqatan macnaha cad hilib ah. idaa salaxat hadday wanaagsanaato xibintaasi oo wadnaha ama qalbiga, salaxa aljasadu kulluhu jirka dhammaantiis wuu wanaagsanaanaya. wa idaa fasadat hadday xanuunsato ama ay fasahaado, hadday xanuunsatana fasada aljasadu kulluhu jirka waa wada xanuunsanayaa. alaa wahiya alqalb waa qalbiga. rawaahu lbukhaariyu wa muslim. xadiiskan toddobaadan ku daraynaa maadaama uu yahay xadiis gaaban. addiinu nasiixa, diinta waa nasteexo. xadiiskan waxaa werina can abi ruqaya tamiim ibn al-aws addaariyi radia allahu canhuma ana nabiy sala allahu alayhi wasalama qaal addiinu nasiixa. qulnaa liman ya rasuul allah qaal lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaamatihim. rawaahu lbukhaariyu. xadiiska lambarkiisa yahay 55. rawaahu muslim. xadiiskan waxaa werinaya abi ruqaya aabaheed oo ah tamiim binu aws addaariy macnaha u nasab sheegto qabiiladaasi ama deegaankaasi la dhaho daariy. tamiim radia allahu canhuma isaga iyo aabihiis waa xadiiskii uguna horeeyey uguna dambeeyey ee uu ka wariyay nabiga sal allahu alayhi wasalam. saxaabigan halkan xadiis ayuu ka wariyay nabiga sal allahu alayhi wasalam. qaala wuxuu yihi tamiim, qaala wuxuu yihi nabiga sal allahu alayhi wasalam addiinu nasiixa, diinta waa nasteexo. qulna nasteexada waa naqan af soomaali, waa inaad macnaha qofka u nasteexayso oo aada u sheegto wax kasta oo wanaagsan. xagga luqada waa faseexo iyo caddayn, laakiin xagga istilaaxa iyo diinta marka loo kaco waa khayr miirid, macnaha khayr miirid bay culimmada dhahaan. khayr miirid waxaa laga wadaa inaad qofkan aada u hagar baxdo oo aad si lilaahi ilaahay dartiisa oo wanaagsan aada ugu sheegto wax kasta oo wanaag ah oo aada og tahay, ugana digto wax kasta oo xumaan ah oo markaasi adiga aad arkayso inuu ku dhacayo, oo aad u nasteexayso si macnaha ilahay dartiisa oo aan ku jirin istutus iyo wax kamid aan ku jirin oo daacadnimo inaad u sheegto. taasaa la dhahaa. marka addiinu nasiixa, diinta waa nasteexo. qulnaa saxaabadii baa weydiiyey nabiga sal allahu alayhi wasalam wuxuu yiri waxaan ku niri, tamiim baa hadlaya wuxuu yiri qulnaa waxaan ku niri nabiga sal allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi yow liman yay u tahay nasteexo diinta. qaala wuxuu yidhi nabiga sal allahu alayhi wasalam lilaahi ilaahay bay u tahay, walikitaabihi kitaabkiisay u tahay qur-aanka, walirasuulihi rasuulkiisa maxamed ay u tahay nasteexo, waliaimati lmuslimiina madaxda muslimiinta ay u tahay, wacaamatihim iyo dadka intiisa kale, macnaha dadka caamada ah ama bulsho weynta ayay u tahay. macnaha caamada tiis af soomaaliga loo naqaana caamada maaha, waxaan ka wadaa waxaa loola jeedaa bulsho weynta ayaa loola jeeda. wacaamatihim bulsho weynta muslimiinta ah ayay u tahay. marka halkan sidee baa diinta ugu noqonaysaa nasteexo ilaahay? ilaahay ma nasteexo inooga baahan yahay? maya. waxay nasteexo ugu tahay ama ugu noqonaysaa in aadan u shirki yeelin allah subxaanahu watacaala, in wuxuu kaa xaramayna aad ka joogto, wuxuu kuu baneeyeyna aada markaasi aada xalaashato, isaga keligiina aada caabuddo,
ilaah kalena aadan la wadaajinin rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo wixiisoo dhan inaad markaasi qirto. taas ayaa nasteexada allah ah. laakiin adigay ku anfacaysaa, ilaahay waxba kaagama baahna, adigaa markaasi ku anfacaysaa ama qofka sidaa sameeya ayay anfacaysaa. walikitaabihi kitaabka qur-aanka ah inaad rumayso, inaad akhriso, inaad barato, inaad macnihiisa fahamto, inaad ku dhaqanto, taasaa u ah nasteexo kitaabka qur-aanka ah. taa iyadaana aday ku anfacaysaa. kitaabka qur-aanka waxba uma tarayso, waxbana kaagama baahna, marka adigay ku anfacaysaa. walirasuulihi rasuulka inaad raacdo, inaad rumayso, inaad u gargaarto, inaad jeclaato, wakaasa taasna aday ku anfacaysaa. waliaimati lmuslimiina madaxda muslimiinta inaad u nasteexayso, iyadana adigana way ku anfacaysaa, iyagana way anfacaysaa. wacaamatihim iyo dadweynaha ama bulshaweynta muslimiinta iyadana inaad u nasteexayso oo markaasi alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar ayaad markaasi aad galaysaa. marka haddii intaasba intaad samayso aad ku guuleysato, hadde waa khayr calaa khayr, barwaaqo barwaaqo dul saaran, nimco nimco dul saaran, aakhiri adduun liibaan ayay noqonaysaa. haddii markaasi nasteexadii ay kaa dhagaysan waayaan madaxda muslimiinta amaba dadkii bulshaweyntina, ugu yaraan waxaad u badbaaday adiga nafsadaada macnaha mas-uuliyadda ku saarneyd baad gudatay, marka waad badbaaday. marka asxaabi halka ayaan ku joojinayna. waa mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.